waa muuqaal aan looga baran Muqdisho. Halkan waa garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium. Taageerayaal xamaasadaysan ayaa soo buux dhaafiyay garoonka, kuwa oo si weyn u kala taageeraya kooxahooda. ديمو يري حمر عانم قاي إلى إبون ديري قلبتنا آدي أنا وفرح سنة عيارته هل مريس علاش حنون وسويلي إنا نكوكل وقدر فرح دينا من سوكوكر سوا مادام عيارها روح بدنا tartankan oo loogu magac daray nabad iyo nolol waxa ku tartamaya 17 kooxood oo kala matalaya degmooyinka caasimadda iyada oo looga gol leeyahay wacyigelinta dhalinyarada iyo sare u qaadida xirfadooda dhanka kubadda cagta ah. nabadda wax marka la waxa waa dhalinyarada Soomaaliyeed maskaxdooda wax badan ayaa ku jira oo dhibaatooyin ah waxay maanta arkayaan wada shaqeyn ay tartankan ka baranayaan in guul dari iyo guul ay baranayaan waxay arkayaan in sportiga soo jiidashada iyo nabadda macnaha qayb weyn ka tahay marka waxay dareemayaan nolol inay jirto ay dareemayaan waxay dareemayaan in mustaqbal higsa karaan inkasta oo koox walba halkan ay doonayso hanashada koobkan haddana meesha kama marna in tartankani uu ku salaysan yahay nabadda taa oo aan seeganayn dhalinyarada xifaaltamaysa ahaan wuxuu ka wad nabad qaadana dhalinyaradu isku baraa hadda boondheer aniga aqoon iskuulin sanadkor dadka dheelay manihin hadda dad cusub aan hadda barasho iyo dad cusub asxaab fiican hadda baranayna insha Allah daawashada ciyaarahan kuma koobna oo kaliya taageerayaasha ku sugan garoonka balse telefishinada maxalliga ah oo si toos ah u tabinaya ayaa suura galiyay in dad badani ay la socdaan iyaga oo guryahooda ku sugan kasoo xamaasadda iyo xifaaltanka ciyaartan qabanqaabiyaashu halkan waxay aaminsan yihiin in qaabkan uu ka mid yahay qaababka dawladda Soomaaliya ay ku doonayso in ay dalka nabad kula soo dabaasho. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho.